Sanadku markuu ahaa 1977, gabar dhalinyaro ayaa waxaa soo wacday saaxiibteed waxayna u sheegtay inay maanta tahay dhalashadeeda ayna qasab tahay inay imaato iyada. Aad ayay ugu farxday waxayna bilowday inay isdiyaariso. Balse maalinkaas waxa ay ahayd maalinkii ugu dambeysay ee qorraxda aragto ilaa muddo sanadooyin ah kadib moogiye. Markuu sanadka ahaa 1984 ayayna dib qorraxda u aragtay. Sheekada aan maanta idinkaga sheekeyn doono ayaa ah sheekadaas. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo taabanaya subscribe, sidoo kalena videoga like saar. Aad ayaad u mahadsan tahay. Taariikhdu markii ay ahayd 19 May 1977, Coolina waxaa soo wacay mid ka mid ah asxaabteyda iyadoo u sheegaysa inay maanta tahay dhalashadeeda qasabna tahay inay imaato iyada. Waa ay ka ogolaatay waxayna bilowday inay isdiyaariso. Waxay soo baxday waxayna soo aaday dhankaas ee waddada si ay baabuur u soo raacdo. Coolina ma aysan ahayn gabar iska raacdo gaari kasta, waxayna bilowday inay gaariyaasha fiiriso, sidoo kalena ay si fiican iskaga fiiriso darawallada gaariyaasha wado. Ilaa ugu dambeyn uu waddada soo maro gaari ay saaran yihiin nin iyo xaaskiisa iyo sidoo kale cunug yar oo ay ka dhaleen. Waxa ayna Coolina ku dhaheen soo bax aan ku sii wadnee. Coolina waa ay ogolaatay maadaama gaarigu u saarnaa cunug yar, sidoo kalena ay saarneyd haweeney. Ninka gaariga waday waxa uu ahaa Cameron Hooker oo ah ninka afduubaha ah, iyo naagtiisa oo lagu magacaabay iyadana Janice Hooker oo iyadana qayb weyn ka geysatay afduubkaas. Markii hore xaaladdu waxay ahayd mid iska caadi ah, waxayna soo raacday gaariga waxa uu bilaabay inuu dhaqaajiyo ninkii waday, waxayna soo baxeen. Markii ay xoogaa socdeen waxa ay gaariga istaajiyeen gaalin shidaan. Coolina waa ay soo baxday, gaariga way kasoo degatay waxayna aaday musqul meesha ka dhoweyd. Musqushii ayay soo dhammaysatay waxayna soo baxday waxayna soo aaday dhankaas iyo gaariga markii ay soo raacday waxay ku aragtay sanduuq weyn oo markii hore aan ku jirin. Coolina waxay isdhahday waa wax iska caadi ah, iyaga ayaana wataan, wax weynna kama aysan soo qaadin. Wuxuu gaariga socdaba Coolina waxay dareentay in waddadan ay saaran yihiin aysan ahayn waddadii ay rabtay iyada. Coolina waxaa ku bilowday welwel aad u daran. Markii gaariga xoogoo socday meel cidla ah marayo ayaa gaariga hal mar istaagay, waxaana ka degtay ninkii iyo naagtii. Waxaan isla dego waxaana ka war helay ninkan oo mindi wato. Hal mar ayuu dhuunta iga saaray, wuxuuna bilaabay inuu afka iga qabto, igana xiro afka iyo indhaha iyo sidoo kale gacmaha, wuuna igeliyo sanduuqa. Waxaa laga yaabaa sheekada markaa kaaga sheekeynayo inay kugu soo dhacdo filimaanta Hindiga ama filimaanta Ameerikaanka ah, balse qisadan waa mid dhab ah oo dhacday lana hubo 100% ayna ka sheekaysay gabadhii sheekada ku dhacday. Gaariga ayaa la soo saaray ayay dhahday, waxaana la ii soo kaxeeyey dhankaas iyo gurigooda. Isma lahayn maanta kadib ayaad noolaan doontaa. Waxaana la keenay guri ay ku dhan yihiin dhammaan alaabaha dadka lagu ciqaabo. Sanduuqa ayaan ku jiray inta badan maalinkii iyo habeenkii. Kaliya waxaan banaanka joogi jiray 2 saac ama 1 saac, yacni 23 saac ama 22 saac ayaan sanduuqa ku dhex qaadan jiray. Sanduuqan waxa uu hoos yaali jiray sariirta ninka afduubaha ah. 2 saac ama 1 saac uu isoo fasaxanay, kaliya waxa uu isoo fasaxi jiray inuu ciqaabo ama inuu kursado. Sidoo kalena xaaskiis waxay ahayd mid wax walba og, raallina ka ah, una ogol, maadaama ay labadooda ahaayeen mid ka siman fikraddaas. Waxay muddo socotaba sanadooyin ay kasoo wareegtaan, wuxuu ninkii iga qabsaday maskaxda. Waxa aan toos u aaminay inuu isaga leeyahay. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu ii keenay waraaqado fake ah oo isaga soo samaystay, balse aniga aan aaminay. Waxa aan ku qornaa in haddii aan isku dayo inaan baxsado ama aan fakado, la dili doono dhammaan qoyskayga iyo wax kasta ama qof kasta oo aniga igu xiriiro. Anigina waan aaminay, toos ayaana ugu noqday addoon uu isagu leeyahay, taasoo keentay inuu isagii ugu kalsoonaado in ka badan intuu isaga isku kalsoon yahay. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu yiri waxaan kuu wadaa hadiyad, waxaana kuu fasaxi doonaa ama aan kusoo tusi doonaa qoyskaaga, balse ballan waxaa ah haddii aad sheegto inaan dhammaantood wada laayo adigana aan ku dilo.
waa uu soo kaxay ay dhahday waxa uunay keenay gurigeyga. balse arrinta layaab kale ayaa waxay ahayd waxaan diiday inaan sheego hal eray ama hal shay wax igu sameeyey. waxaana dhahay waxba iguma dhicin, anigaa iska baxay. keliya waxa uu ii ogolaa inaan 2 saac la joogo. 2 saac markay dhammaatayna waa uu isoo kaxaystay, waxa uuna igu soo ceshtay gurigiisa. balse taas ma ahayn kalsoonidaas iyo aaminaadaas uu isaga igu qabay inuu iga joojiyey ciqaabtii, balse sidii hore si ka daran ayuu ii ciqaabi jiray. maalinba maalin ka dambeyso ciqaab cusub ayuu ciqaabi jiray. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa kusoo dhacday isagii fikrad ah inuu aniga i guursado. waxaa dhehayso Colina. waxa uu u tegay xaaskiisa, waxa uuna u sheegay waxa uu damacsanaa oo ahayd inuu Colina ka dhigto xaaskiisa labaad, balse xaaskiisa ayaa arrintaas diiday. waxaadba moodaa inaysan 7 sano aysan joogin, waxayna bilowday inay dhahdo gabadhan waxaa ku haysto waa khalad, waa ciqaabaysaa, sidaan waay, bini'aadanimo ma ahan. sidaas ayay bilowday. waxayna ii imaatay aniga, waxayna ii sheegtay in waxa kasta uu ninkaas ii sheegay ama waxyaabaha aan saxiixay dhammaantood ay ahaayeen wax been ah, oona jirin wax qof uu dili karana aysan jirin isagoo. markii ay ii sheegtay waxaan bilaabay inaan baxsado amaba aan ka soo baxo guriga. waa isla maalintii, waa isla waqtigii ay iyada ii sheegtay, isla iyadii ayaa garab iga siisay inaan soo baxsado ama aan soo baxo. markiiba waxay wacday booliiska, waxayna u sheegtay wax walba oo uu ninkeeda sameeyey. markiiba booliiska ayaa u yimid, waa ayna qabteen, waxaana la geeyey maxkamadda, waxaana lagu xukumay 104 sano oo xarig ah. 2003 ayaa mar laga soo bixiyay xabsiga xanuuno asaga ku dhacay awgiis, balse uma aysan suuro gelin inuu hore uga sii baxo xabsiga. oo markii uu caafimaadayba xabsigiisii ayaa dib loogu celiyey. waxaana mar walba isha ku haysay gabadhii uu 7 sano soo haystay, soo kufsanayay, uu soo ciqaabayay. halkaas ayayna qisadii gabadhaas ay ku dhammaatay, inkastoo iyada ilaa hadda ay nooshahay, sidoo kale isagana ilaa hadda uu xabsiga ku jiro. fadlan waxaan kaa codsanaynaa haddii aad nagu cusubtay inaad nagu soo biirto, sidoo kalena aad fiidiyowga like inoo saarto. aad u mahadsantahay.